Bismillahirrahmanirrahim. Anigu ku bilaabay magacayga Jaamac Daawo Maxamuud Cali oo ku dhashay Boondheere. Waxaan codsanayaa dadka musharaxiinta kale dowladda kale hadda gudoomiye maamada ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa iga caawisay iyadoo markii hore laamiyada kale hadii ay u aragto gobolka Banaadir ay ugu caawi jirtay xaafadda biilkooda wax kasta dhaqaalaha xagga oo xaafadda maalmaha kamid 6 bilood ayaa saarnaa maalmaha kamid ah soo kaaga maamadii arkay gudoomiyaha gobolka Banaadir duqo magaalada Muqdisho ee waraaqad isbitaal Digbeer iyaga dhameysay isbitaal Digbeer maalinka tagay waxa la yiri lacag adiga habeenkii waxa lagu jeefanaa $50 habeenkii iyo maalin lagu jeefanaa marka dhaqaalihii waa awoodi waayay waxa maamada u tagbo waxa meelaha ugu gashay marka gobolka Banaadir adiga maalinaya ilaa qaraasiyo maamadana ilaa qaraasiyo wixii oo awood Soomaali muslimiinta dhan waxa awoodin inay u tababarayeen xilli waxa lagu jira waa maasantii nabarkan wala nabar xaq alla ka soo baxa waa adi amar alla fut u soo 3 nabar oo taal nabar hada ma 3 xabo waa mid hoos weeyla mid kale isbitaal Digbeer u yireen waa la qalaa wax kale ma sameey karnaa isbitaalada qaar hada waa leeyahay wax aan ka qaban karna ma leeyahay nin cadina waa ay waa qalana yiri marka waxaan awoodi way dhaqaaliya marka wixii adiga nin dhaqaalahaas wixii ummadda muslimiinta waxa leeyahay inay gargaar ay fidiyana jeclaala